ايه ها ما قرت قف كلمة كحدليي وانا السبب تصالي هدان aniga hadda private baan ku jira qol mar reexaan aan ka soo dagay dib ii soo celi private kan ka soo baxaya dib ii soo celi private baan ku jiray waa inaan la hadlo yarkaas hadlaya oo president ay ugu qoranta uu ka baxay waa ka xumahay ها سيده waxaan rabaa inaan laba kalmadood iraado waa soo u tagay hadduu codadka jarjaray iyo hadduu sii daayay labadaba dhaqan daarood iyo dhaqan islaam iyo mid Soomaalinimo uu ku gafay horta inuu ka toobad keeno oo u furan tahay raaligelinna uu ka bixiyo isaga iyo intii la mid ka ahayd uu jarjaray inti kale mawduucu ka hadlayo tusaale waxaas wallahi codka soo dhameystiran baa lahayaa hadda dhageysin kartaa markaa joog ereygu yiri ma duusaayo hadaan jarjaray ereygu yiri bal ku celi muxuu yiri bal ereygii dib ugu celi adeer waxa ku cad adiga codka aad wadato qof intuu soo laha marka hadal ku laha qof buu ka waday baad ka wadaa Soomaha qof buu ka hadlay in adeerow wuxuu doonaha ka hadlo wax badan baa looga hadli karaa hebel wuxuu yiri saddex go'aan baa ugu go'an khaniis baana hebel wuxuu yiri saddex go'aan baa ugu go'an khaniis baana hebel wuxuu yiri laga gooyay saddex go'aan baa ugu go'an khaniis baana hayba soo baxaysa ma fahanti hadda intaasina waa duubantay intaasna waa duubtay tantahay birri baan faaqaynaya waxaas anaga day wax naga galay ma lehe topic haddaan u soo laabto mi cabdiyow haddaad isku daydo ina aad nin rag ah oo adiga oo kala